bahda ku xiran ayaa nolosha TV waxaan aad iyo aad uga codsanayaa inay qisada aysan dhaafin oonaysan yaraysan runtii waa qiso aniga qisadani waa dhab waxaana inoo soo dirtay gabadh ka gaabsata magaceeda oo ku nool magaalada Hargeysa. waxay tiri laabta ayaan ka oynayaa cidina ma dareento mana fahamto waxa qalbigayga gubaya. way fududahay bay tiri sida qalbiga loo jabsho laakiin waa wax aad u adag in la dhoodhoobo ama dib loo dhiso qalbi jabay. kalsooniduna hadday burburto waa sida dhala jabtay oo kale. wiil ayaa jacayl runtii xidid kasta oo jirkayga ka mid ah ku baahay u qaaday bay tiri laakiin waxaan jacayl wada wadnaba qalbiga ayuu iga jabshay wuxuuna iga baxay dhammaan waxaynu axdi iyo ballan wada qotominay. waa adduunyo iswada bedeshay waa jacayl midaba yeeshay waa barasho fudeed noqotay waana mugdi jacayl iyo maalmo xasuus badan. waa meertada dareenka jacaylka oo qofba meel ka qabsatay. waa dad naxariistii ka soo dhammaatay waa duni aaminku ku yaraaday waana dad wada interest ah oo qof kasta qofka kale ku meel gaadhayo. waa dad wada ordaya oo iswada gaadaya. jacaylkuna wuxuu noqday maanta mid intiisa badan aan afkaba dhaafsiisnayn. haddaba gabadhani wiilkii ay ka dooratay ragoo idil ayaa qiyaamay. waxay tiri muddo kadib waxaa anigoo weli la liicaya dhaawacyadii iga soo gaaray jacaylkaygii hore isbaranay wiil ii soo bandhigtay bay tiri jacayl laakiin anigu kalsoonidii ayaaba iga dhammaatay waxaana ka baqanayaa bay tiri in isaguna sidii ninkii hore oo kale i qiyaamo amaba qalbiga iga dhaawaco. waxay tiri qofna qalbigiisa ha dhaawicin iyadoo intaa raacisay haddii lagu dhaawacana waxaad la timaadaa samir aad kaga gudbi karto daruufaha kugu xeedhan. waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka goyn xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. taladiina ayay u baahan tahay gabadhani waana tan iyadoo ka sheekeynaysa waayihii jacaylkeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يعني دي سلام يا بعد كحرن أيها nolosha TV waxaan kaloo aan salaamayaa Nuur Shariif oo ah qof dareen la garabtaa qof kasta oo dhibaatadiisa markaa haysata u soo bandhigta. runtii ayaa nolosha TV aad ayaan ugu xiranahay. waxaan jeclahay inaan qiso kasta oo la soo dhigay inaan dhageysto waxaana jira qisooyin badan oo aan isdhaho male qisadan adiga ayay ku qosaysaa. runtii waxa igu kalifay caawa in aan qisadayda cod ka soo duubo amba aan wax yar ka taataabto qisa dhibaatada amba mashaakil aan ku noolahay. runtii waa jiraa laba problem ay haysta dhanka familka hadayta dhanka hadayta jacaylka runtii laakiin dhibaatada weyn u weynay haysataa maanta waa dhibaato jacayl taas oo aanan sharixi karahayn amba halkan aanan kusoo koobi karahayn iyadoo qaadanaysa halqada aad u badan. runtii aniga wiilkii aan labaad ee nolosheeda kusoo biiray amba aan jeclaaday runtii waxaa jira jacayl shaki ku gelinaya adiga oo kalsooni zaid haysta. runtii aniga wiilka waan jeclay kalsoonina waan ka haystay laakiinse waxaan markasta isweydiiyay hadda oona shakiga hore iskugu arag tolmo qof kale ayuu la sheegtay tolo muxuu kaaga damacsay tolo wiilkii hore oo kale armo ayuu kugu noqdaa. runtii aniga waa dareenka i galay waa dareenkadiisa weeyaan ambaan markaasku arkay xaalad hadda ila soo gudboonaatay. runtii mana aha mid aniga ii gaar ah ee waa mid qalbigayga ku baahsan oon qalbigayga xanuun saayid uga dareemayo. runtii waxaa jira qof aad intaasoo dhan istiqaaneen kana jecesha maanta qofkaas baratay aniga wiilkan aan hadda bartay waxa weeyaan wiil noloshayda bedelay amba aan isleeyahay kan waa kii nolosheeda kaliya nuursan lahaa farxad gaara ku siin lahaa. runtii aniga dhibaatada weyn ee haysata hadda qalbigayga ka bixila waa dhibaatada jacaylka
dhibaatadaas oo aanan ilaabi karin marnaba, oonan marnaba aanan isdhaafin karin. Haddaad si kasta isugu daydid in aad qalbigaaga dhaydid, ma dhayi kartid, oo qalbigaaga wixii ka maqnaa waa ka maqayin. Haddii usoo laabtaan markaas oo keliya ayaa culaysku kaa baxaya. Aniga hadda ayaa waxaan isku arkay warwar aan wiilkan intaan bartay aanan lahayn, laakiin kalsooni waan ku qabaa. Laakiinse markasta waxaan isleeyahay maxaa tol armuu shukaansi kala wata, armuu qof kala jecel yahay, armuu qof kala daneynaya, armuu keliya adiga been kuu sheegaya. Aniga oon markaa u soo bandhigin isaga anba dhihin maxaa ku haysta, armaba waxyaabo oon isleeyahay niyad jabin amba kalsoonidiisa ha jabin ku kalsoono. Laakiinse waxaa jira jacayl sikadiisa kugu gelaya warwarkiisa, kaasna maaha midaan ugaan caddayn karo amba aan sharaxi karo. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa bahda ku xidhan Ayaha Nolosha TV in ay qisadayda waxa ay talo iga hayaan in ay ii soo bandhigaan waxa ay markaa dareemayaan. Qof walba dareen gaar ayuu leeyahay, aniga dareen gaar ayaan leeyahay, qof kastaba dareen gaar ayuu leeyahay. Qofba wuxuu odhan karayaa hadal isaga qalbigiisa ka soo go'ay, qofbaa qisadan dareemi karaayo, qof aan xanuunka amba dhibaatada haysta aan dareemi karaahay. Marka waxaan ka codsanayaa in ay qisadayda si buuxda u dhageystaan, aniga oo soo bandhiga wixii qiso qalbigayga ku jirta amba wixii aniga dhibaatay haysatay. Runtii caawa ayay iga soo go'day, waxaana iga soo go'ay xanuun i haysta amba qalbiga aan ka dareemayo, taas oo aan caawa ku soo bandhigay oon doonay wax yar oo cod inaan la wadaago bahda ku xidhan Ayaha Nolosha TV. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa inay qisadayda aysan dhaafin oonaysan yaraysan. Runtii waa qiso aniga haysta, dad baa beenaysan kara, dad baa rumaysan kara, dadka qaar bay bedelaysaa noloshooda. Waxa aan ka codsanayaa qof kasta oo dhalinyaro oo xaalad ku sugan in ahaado si kasta oo dhibaatooda ay jiri doonto hal shay oo u dhibaatada markaa haysta oo ku ilaabi karo. Runtii waxaa jirtan badbaadin naftaada oonad laakiin ogeyn, adiga oo dhibaato saayida ku haysata ayaaba waxa ku badbaadinaya hal shay. Runtii aniga waxaa jira waxyaabo badan, marar badan baan doonay inaan wallaahi isdhaafiyo nolosha. Dadka qaar baan aaminsanayn, laakiinse wallaahi waxaa jirtay dhowr jeer oo aan sigtay amba dhakhtar lay dhigay wallaahi, oo wax badan xaaladayda kala soo daristay, oon hadda nuglahay, oo xataa socodka aanan badsan karin, oonan xoog socod karin. Maan jeclaysan inaan magacayga halkan ku soo bandhigo, laakiinse waxa aan ka codsanayaa dadka marka xaaladda jacaylka ku sugan ee qisadaydan akhrista in uu nolosha